السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوالة برنامج كنا تاريخ توب. ما أنتوا حنكلمنا تاريخ دلك السودان. داwo شو. dalka Suudaan oo sidoo kale loo yaqaan Jamhuuriyadda Suudaan waxa uu ka mid yahay wadamada dhan Carabta dhan ku yaala qaaradda Afrika. dalkan waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Masar, Uganda, Itoobiya, Liibiya iyo Chad. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Koonfurta Suudaan oo 2011 ka go'day iyo dhulka Eritrea oo ay xuduud badeed wadaagaan. dalkan waxa uu sidoo kale ka mid yahay wadamada uu maro webiga Nile, laba dhinac ayuuna u kala qaybiyaa. waana dalka saddexaad ee Afrika oo dhan ugu weyn, waxaa ka dhul weyn wadamada Algeria iyo Koongada Dimuqraadiga ah. sidoo kale waa dalka saddexaad ee wadamada Carabta ugu weyn, waxaana ka dhul weyn marka la eego dhanka wadamada Carabta, Algeria iyo Sacuudiga. caasimada wadankan waxaa la yiraahdaa Khartoum, hase ahaatee magaalada ugu weyn waa Umudurmaan. waxaa dhulkan ka kooban yahay 18 gobol iyo 133 degmo. dalkan Suudaan waxa uu xornimadiisa ka qaatay Ingiriiska oo gumaysan jiray 1 bishii January 1956. tirada dalkan waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 40.23 milyan oo ruux. lacagta dalkan laga isticmaalo waxaa la yiraahdaa Suudaan pound. gaadiidkooduna wuxuu isku dhaafaa dhanka midig marka wadankaas la joogo. luqadda koowaad ee wadankan waa af Carabi, Ingiriiskuna waa ka labaad. waxaase jira in ka badan 400 oo luqadood oo wadankaas lagaga hadlo. calanka wadankan waxa uu ka kooban yahay midabada cagaar, casaan ama guduud, cadaan iyo madow. magaca Suudaan oo af Carabi ah, dadka luqadan yaqaana waxay ku micneeyaan dhulkii dadka madmadow. dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada Afrika ugu taariikhda fog, waxaana lagu xasuustaa boqortooyinkii kala ahaa Kush, Karma, Nabootiya, Aloodiya, Makuuriya iyo kuwo kale oo badan. waxa kale oo Suudaan ka mid tahay dalka 17aad ee dhaqaalahooda ka hela shidaalka ay dibadda u dhoofiyaan. wadanka Suudaan hadda waxa uu xubin ka yahay ururada kala ah ururka midowga Afrika, ururka jaamacadda Carabta, ururka shirweynaha Islaamka, urur goboleedka IGAD, ururka ganacsiga adduunka iyo ururo kale oo caalami ah. sidaas oo ay tahay waxa uu dhanka ka mid yahay wadamada Afrika la soo dhacay dagaaladii sokeeye, maadaama ay dadkiisu isku laayaan qowmiyad. qiyaastii in ka badan 2 milyan oo ruux ayaa ku naf waayay dagaalkii sokeeye ee dalka Suudaan. sidoo kale 200,000 oo ruux ayaa shaqo lagu qasbay. dalka Suudaan waxa uu booska 172 ka galay 108 wadan ee xuquuqda hadalka iyo warbaahinta ku xadgudba. in ka badan 70% dalka Suudaan waxaa la aaminsan yahay inay Carab yihiin. dalkan Suudaan badankoodu waa dad muslimiin oo Sunniyaal ah. dadka muslimiintu waxay yihiin 57%, halka inta soo hadha ay yihiin Masiixiyiin. dhaqanka marka aanu eegno, qowmiyad walbaaba dhaqan gooni ah ayay leedahay, waxaana isku dhaqan yihiin oo isdhaqan sawaabiyaan Carabta. raggu waxay xidhaan maro waaweyn oo cadcad, madaxana maro kale ayay ku duubtaan oo loo yaqaano jalabiya. dumarkuna waxay xidhaan duruucyo, guntimooyin iyo garbasaaro. dhanka ciyaaraha, dalkan waxa laga xiiseeyaa kubadda cagta, orodka iyo kubadda kolayga. dalkan waxa uu ka mid yahay wadamadii ugu horeeyay ee asaasay xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika. dalkani ku guuleystay koobkii qaaradda Afrika ee kubadda cagta sanadkii 1970, halka Suudaan laga qabtay ciyaarta kubadda cagta ee Afrika sanadkii 1956. cuntada dalkan laga cunaa waxaa ka mid ah rooti, digir, kabaab iyo cuntooyin kale oo kala duwan. waxaan filayaa inaad ka faa'iideen. like, share, subscribe. nabad.